والحديث كلفتيس أيا باطينا يا حجوينكين حديث كمرة بعضكم حاضرين إنسان ولور ديسان يمرقون من الدين أينما لقيتهم فاقتلوهم حديث كان صحيح ومرة بعض أخي إنسان حجوينكويه وحجوينكويه حجب معنا وحوي dadka nabigu leeyahay laaya waa dad ashaadanaya waa niman ashaadanaya oo aan shirki sameeyeen bay ahaayeen idinkana waxa difaacaysan waa niman ashaadanaya laakiin shirki sameeynaya bal isku fiir marka man nabiga xadiiskiisa waa waafaqsantiin mise waa khilaafsantiin rasuulka ilaahay niman buu sheegay soo bixi doona waagiisii aan joogin buu wuxuu yiri haddaad aragtaan laaya waa niman quraan akhris badan waa niman salaad fiican waa niman quraan akhrinayana waa ashaadanaya quraanka ashaadada ka buuxda macna la ilaha illa allah fa'lam annahu la ilaha illa allah ku jirta quraan allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ilaha illa allah quraanka ka buuxda macna marka niman quraan akhris badan buu sheegay soo bixi doona salaadna lagu gaarin soonna lagu gaarin oo wanaagsan oo xagga cibaadada iyo dhaqanka laakiin diinta ka baxaya maxay diinta uga baxeen marka waxa la yiri dhiigii muslimiinta joojin waayeen intii bilaayay oo la dagaalameen oo dhigooda xalaalsadeen taawiil faasida balima marka labada xujo maanta aad idinku doodaysaan oo ahlu shirkiga ku difaacisaan labada xujo waa yeeleen waagaas laguma difaacin nimanka aan shirkiga sameeyeen bal fiiriye maanta ahlu shirkiga waxa ku difaacdaan la ilaha illa allah ilayhi waxa kale oo tiraadaan waa jaahiliin xaq inay haystaan bay u maleynayaan waa mutaawiliin labada arimood xadiiska ku jirta fiiriye ma nimanku waa shaadanayeen suhalay ahaayeen oo cilmigooda yara oo cilmi la'aanta waa lagu sheegay macna inay janno galayaan bay rumaysnaayeen mid baa warankii markii laga dhaxbixiyay saxaabigu wuxuu yiri wuxuu lahaa macnaha jannada ay soo dhawaatay u lahaa wa'ajiltu ilayka rabbi litarda wa mid akhri markii waranka lagu dhufto wa'ajiltu ilayka ilaahu waan ku soo degdegay rabbi litarda si adiga hal noqdo oo ilaahay nin u soo degdegay ayaa waxa arkaysaa ciidan yar oo iyaga kamid ah waxa ku imaanaya kumanaan iskaas ay xilayeen haniyan aljanna jannadii waatan bilay waa dagaalamayaan waa ku baabaayaan niman ka baxsan mooyee macna nimanka saa naftooda u horaya waxa weeye waxay ahaayeen niman u maleynaya iyagu inay sawaab jahayaan dadkana gaaloobeen saasay marka u mintidahayeen macna marka taawiil maxaa loogu badbaadin waay waxa loo oran waay nimanku taawiilin way iska daaye hagaalaysinina waa walaalihiin waliba iyagu shirkiga ka baxeen maanta kuwa shirkiga sameynaya u doodaysan macna shirki akbarkii niman maanta aan ka toobadkeen bal iska daaya adigii bidci ku bixiyay oo bidci ku bixiyay kula dagaalamaya oo salaad ku xiranay yaa waxaad leedahay maaragtay waa ashaadanaya iyo waa mutaawil khawaarijtiina nabigi wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay dhalinyarana yihiin cilmi yar yihiin oo caqligoodana waliba yar yahay haddana inay quraan akhrinayaan oo dad ashaadanay yihiin oo tawxiidkii ka soo baxaya yihiin haddana laaya buu yiri sidii reer cad haddaad ogaan lahaydeen ajirka laga helayo wax kale oo ka tagi lahaydeen baliima wax kale waa ka tagi lahaydeen yaa ku mintidi lahaydeen baliima xadiisku marka xujooyinkiini ayuu baabiinaya qof macnaha arrin dambi ah ka bixi waayay sida khawaarijtii oo kale oo dhiigii muslimiintii banaysashadiisii ka bixi waayay haddii maaragtay macnaha laa ilaha illa allah lagu badbaadin oo taawiil faasida iyo jaahilnimo lagu badbaadin nin waxa wax ka weyn sameynaya oo rabbiga carshiga weyn lahaa shariik u sameynaya in loogu doodo la yiraahdo waa ashaadanaya waa jaahil waxa weeye waa indhala'aanta wadaadada bay kamid indhala'aanta culamaa usuub ay kamid ilaahay inuu wada toobad keenaan baa maaragtay ku aadan xujadiina saddexaadna waa baabiinaya xadiis واترادين قف معينة قال ويكاس لما ورنكر صحابي وحسكوا وافقين نمنكي يوم من هروان إلى هاين خوارج والله حكمي إن خوارج هاين بالله ولا لاي خوارج تنبو شيء وكمان بلي وأن من يغان عبد الله بن وهب بن الكوائي وحاول حرقوس بن زهير نمن يغانه قاميالا كجريما نمن كان سوانين كنبو شيء نسحابي ويلكي كجريما علي بن حاتم ويلكي كجري ولا لاي نمن كمان مركا dhinacaas marka horta diin ahaan marka loo firiyo arrintu waa saas marka nimanka xadiiska daliishada oo isla dadba ku ridinaysan u maleynaya habeenay maan ku celcelinaya xadiisul yaani khawarij waxaan u sheegaynaa xadiisku idinka ayuu radinaya balaad u fiiriya dib ugu laabta xadiisku waa sharaxan yahay khawarij waa la yaqaan waxa lagu haystay oo dhan waa la yaqaan inay dunuubta gaalnimo u maleynayeen inay saxaabadii Uthman iyo Ali iyo Muawiya iyo jiilkii waagaas oo dhan ay gaala ka rumeeyeen oo ninkii iyaga kamid noqonaya waa inuu ka bari noqdo Ali bin Abi Talib iyo Uthman bin Affan inuu ka bari noqdo weey maan taasi khawarijtu ahaayeen lagu yaqaanay waxa kale lagu yaqaanay sunnada inay aqoon sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay daliishaneen waxa way quraan ay yaqaaneen kaliya iyo wax xamaasad iyo quluub ku jira inay marka daliishanayeen inta un baa la hayaa macna khawarij bal waxa raadisaan khawaarijtu ummadda waxay ku naceen oo kula dagaalameen shirki laga bixi waayay oo waxay moodeen shirkiga in lagu gaaloobayo oo waxay moodeen shirku waa shahaado inuu burinayo bal arrimahaas khawaarij laga sheegay soo sheega macna no soo gaarsiin inta nacaaysan ilmi ahaan inta loogu nasaxaysan noo keena mas'aladaas ka noo soo jawaab waxa tiraadaan khawaarijtu markii ummaddu shirkiga samaysay ay shirki ku naceen ya khawaarij loo bixiyo la laayay idinka rasiibaatiino ummaddeena markii shirkiga ka bixi weyday ya shirki uga bari noqoteen taas khawaarijtu diinta ilaahay markay balka rusheego mas'alada noo fiiriyo noo keena kale waxa kala soo raacaysan ummad macnaha kitaab ilaahay iyo garanaya kitaabkiina u yaal iyagoo madax banaan oo xor oo cidina gumaysanay kitaabka ilaahay ku kala baxayna hawo banaan kala baxaya
inay balsaas la oran karo waddan muslimiin baa la joogaa iyo daaru islaam in la oran karo iyana la oran karin fiiriya arrinta cilmiyan wax u bara ayada iska daayay masaajidada ka dhaxaysamaysaan idinkoo qaldan oo lumay oo baadiyoobay yaa haddana bayd ilaahay ka caysamaysaan macnaha marka yahuudda arkaysaan ma aha iyo gaalnimada maqlaysaan geeso kaa soo baxaya iyo dhawr maarata dhurwaa aad yeelanaysid ma aha gaalnimadu waxa weeye waa dhiga adayg waa aayad ilaaha garanaysa lagu tumanayo wey waa aayad ilaahay cilmi ilaahay aad og tahay oo ilaahay bayaamiyey oo la qarinayo oo waxa weeye dadkii toosnaa lala dagaalamayo intaasaa gaalnimada ku gaaraysaa adoo nadiif ah oo gar weyn oo salaada si khushuuca u tukanaya yaa waxa weeye sifadaa qaadanaysaa haddii markaa aad adigu sifadaa yeelatid ha sugin macnaha gaalku maaha nin balaayo kasoo baxday waxa weeye dhawar iyo yeeshay iyo geese iyo baal laga baqaya gaalka waxa weeye nin nadiifa oo maaragtay yani dhar fiican qaba oo qamiis cad qaba hadduu dhagaaday keeno oo diinta ilaahay taxriifiyo dariiqii yahuudi raaco sifadii buu yeelanaya macna marka arrimaha aan idiin sheegay maarata waa iga naseexo si fiican u fiiriya macna xadiiska mar walba la sheegayana makaankiisa hala dhigo aayadaha ilaahay sida ay wax u kala miisaameen shirkiga meeshii la geeyey hala geeyey in macnaha ninkii shirka akbarkii qur-aanka o dhan kasoo degay oo lagu dagaalamay ambiyada ilaahay loo soo diray ninkii samaynahayena in la difaaco ninkii ilaahay diintiisii yani ka run sheegay oo millata ibraahim raacayna in laysugu tago oo cadow laga dhigto bal meeshii diinta uga taal soo fiiriya